iyadoo ay dhawaan ahayd markii xukuumadda Somaliland soo saartay awaamiirta lagu banaynayo jidadka magaalada isla markaana lagu qorsheeyay in la saxo master plan-ka magaalada oo hore ay cabashooyin door ah ka soo yeedheen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale oo la xiriira dhinaca jid xumada gudaha magaalada taasi oo sababtay in xukuumaddu ka qaaday tallaabo hor leh oo ay ku banaynayeen wadooyinka gudaha magaalada Wajaale ayaa mar kale qaybo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalo xuduudeedka Wajaale ay ka soo yeedhay cabashooyin la xiriira in howlgalkii xukuumaddu ku banaynaysay jidadka magaaladu ay ka barakiciyeen degsimooyinkoodii hoyga u ahaa kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen in ay yihiin dad danyar ah oo aan tahli karayn inay mar labaad ku xidhaan xayndaabyo ay kaga samata baxaan duurjoogta oo habeenkii xiliyada dambe soo gala gudaha magaalada haddaba mar shabakada wararka ee Gabile News Network la dhex martay makarafoonka qaar ka mid ah Danyarta ayaa sheegay inta loo calaamadiyo inta ka dur waa lagu dhufanayaa waa lagu jeexayaa inta ka noqon lama leh dadka in la yiraaho inta soo mitir weeyaan dadka yasiro ya Muuse Biixi Cabdi iyaan ka codsanayna Danyarta way ruqanaysaa dadku waa la barakiciyay suuqii xaafadiina ay ku daba jiraan marka Muuse Biixi Cabdi oo shalay u dooran waxaanu ka codsanaynaa inuu hadalka shadaadiinta maqal waxa maanta fashilmaya oo muuqda in dadku ay sas ka qaadayaan maadaama ay joogaan dilaalintii danta guud dilaalay maantana ay doonayaan dawiyo inay bixiyaan ragii barandayaasha iibinayay maantana inay xaafadaha yiraahdaan cagafta qaarna ay wada degta lagu mari sida ay mariyaan qaarna ay ka daayaan waxa aanu ka codsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda kale oo soo bixiyay miisaaniyad 9 milyan hooyada yar ee Danyarta ee aqalkeega la jiray waxa loogu soo bixiyay lacagta 9 milyan in nus baloorka laga jiray nus baloor kale loogu iibiyo loogu bedelo ninba gabiyo wuxuu yiri xogayaa waa inaad si dhab ah u xidhaa dhacas baa xidhmee waa inaad xoolo bixiyaa xayndaabka waa inaad marshaa xiraagoobed xinjirtiisa waa inaad ismarshaa kiidadii xigay waxa weeye madaxweyne dadku inay xisbiga sas ka qaadaan maaha hooyooyinkood agoomo oo ay ku ganacsanayeen sariibada hortooda ayay cagaftu u dhaaftay xaafadii iyadoon og la siinin oo shawladihii gaaska iyo dabkii ku guban gaadhay waxaanu ka codsanaynaa dadku waa dadkii soo saaray xisbiga magaaladani 100% waa magaaladii u heelanay xisbiga kulmiye iyo soo saaritaanka mudane Muuse Biixi Cabdi samayso oo aad naga bedesho dadkii shalay sharciyeeyay wadada ka iibiyay dadka dad maanta maxaa qoday ay yiraahdaan haddana maanta anaga wadooyinkii ordayno cagafta maxaa qoday hor ordayna waxaanu aqbali karayna maaha ilaahay oo naqaxin baad oo yan naqaxiseen qaxbaan u taaganahay xiriyaanu ku qaxnaan nala sameeyo waxaana la taarto waadna wadheen dhalaankii aygii iyo dhurwaagii iyo waraabii baa naga boobay madaxweynuhu uu garanaya lanta urdunka halkay ku taal iskuulka uu garanaya inta guriga laga dhisay uu og yahay ceelka halgeedkii waa ku ahaan jiray inta guriga laga dhisay waxa weeye iska daa gudoomiye ee taliyaha la keeno magaalada ayaan laga baxay US adoo dhiiba mooyaane oo lambarka 89 ka hadla mooyaane aan lagu la hadlay dawladdu hoos u eegto musuqmaasuqa magaalada Wajaale ka jira saambaa imika halka ka ooyis sagaal ciyaal haysto agoona waxa weeye suuliga 3 joog bay darqa ku qoratay 3 joog ay darqa ku qodatay waxa ugu dan gurina suuli laan lama noolaan karayo cid walba way ogta islaantaas waxa ay ku dhisatay iyo umadaasiba ma haystaan meeshii yarayday xabuubta ku iibinaysa laga kiciyay duruuf ay ku waqti adag baa lagu jira abaara lagu jira ma awoodi karayo qofka Danyartii waxa weeye musuqmaasuqa waxa la soo sorday halkii danta guud ahayd in cid walba lahayd $50 hoos u waday anagu oo san loo baabiyo masaakiinta oo maxaa dhaday wixii anagu xashiishka sibsaas loo baabiyo madaxweynaha sharafta waxaan uga baahanahay in si degdeg loogu soo gurmado oo wax noogu qabto uga baahanahay waxa kale oo uga baahanahay waxa ku anagu suuqina naga baabiyay ayaa dan xaafadii la noogu yimid madaxweynaha waxaan ka doonayaa aqoontaasanahay subaxa saaka ah hadda la yiraahdo waxa saan haysta waxaan ku ooto iyo waxaan ku qabsada midna ma haysto taa inuu soo caawiyo waxay tarada wadiga arkay ay ku soo darseen waxa la waxaan saydaalahay anoo waxaan kariyo la haddana waxaas igu soo noqdeen subaxa saaka la igu oglayahay waxa la waxaan ugu ooto magaalada Wajaale ay ku sugantahay waxa weeye miskiin baa miskiin la fulo leh aad baan uga xunayn masaakiintu la eegto wadada Wajaale waxaad moodaysaa qaabka loo wada in wada tunka lagu sitay tahay
iyadoo ay bulshada magaalada tog Wajaale ay soo dhaweynayso to mastar balaynka magaalada oo in badan ay uga caawinayso wada la'aan haddana wadadii oo timid ayaa waxay jirto wadadii oo aan ahayn wadada haysata haadkeegii wadanimo kuma qaadan karno in masaakiinta la ugaarsado oo dadka oo la yiraahdo miskiin la fulo leh madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa in shaarka maamulka magaalada ka jira inay shaarkaaga umada ugu hanjabaan aad baan uga xunnahay waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal ilka case shabakada wararka Gabile News Network magaalada Wajaale